wasaarana salaama maana arag weli madaxweyne inta noo imaadana salaama maana halkaas inta la istaaga la tagay maanta jarrac ciidamadani oo ugu horeeyay lagu dhisay qorshaha isku dhafka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo xaruntoodu tahay duleedka magaalada Kismaayo ayuu maanta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre booqasho dhiirigelin ugu tagay isla markaana uu ku ogaanayo baahida ay qabaan ciidanku ee u baahan in si dhaqso ah wax looga qabto ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo booqashada ciidanka uu ku weeliyeen madaxweynaha Jubbaland wasiirka gaashaandhigga wasiirka amniga qaranka wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland waxa uu ra'iisul wasaare Khayre mid xaaladooda guud iyo gaar ahaaneed uga xog wareystay taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Jubbooyinka ayaa madaxda dawladda warbixin ka siiyay baahida ay qabaan ciidanka xoogga dalka ciidankaasi si buuxdo baahida qalabka ciidan ee u baahan yahay in loo soo dhameystiro si ay u gutaan waajibaadkooda qaran ee wadankooda ka saaran inay gutaan oo ay cadowga ummadda Soomaaliyeed ka dulqaadaan wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ay diyaar u yihiin inay u dhintaan difaaca qarannimada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed dhammaan ciidamada qalabka sida saraakiisha xigeenka lifleyda dableyda dhammaan waa islaamay assalaamu calaykum waalaikum salaam aad bay farxad noo tahay in maanta idinla joogno aan aragno kutubiyadii qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo la hadlay ciidanka ayaa tilmaamay in dawladda Soomaaliya ka go'an tahay inay daboosho baahida ciidanka qalabka sida oo u taagan abuuridda rajada ummadda Soomaaliyeed iyo difaaca qarannimadeena waxaan mahad halkan uga dirayaa ciidamada walaalaheen ee AMISOM gaar ahaan ciidamada Kenya iyo Ethiopia oo ciidamadeena ku caawiyay tababarada kala duwan oo iyaguna qayb ka ahaa amniga waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin inaad soo diyaariseen inaad naftiina gelisaan dalkiina waa idinku ammaanaynaa abaal baan idinkaga haynaa inteena kale oo madax iyo shacab ah madaxdeena waxaana laga rabaa inaan idinku maamulno cadaalad qalabka iyo mushaarka iyo xaqa aad leedihiin inaad bil walba heshaan wasiirkii gaashaandhigga iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka way fadhiyaan waxaan leeyahay waa in wax walba ka dhiman la idin soo dhameeyo halkan waa deegaanka Goobweyn ee duleedka magaalada Kismaayo waa meel ku wanaagsan dalxiiska nasashada allana nimco iyo qurux ku manaystay waa halka iska galaan webiga Jubba iyo badweynta Hindiya ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo mas'uuliyiin kale ayaa booqday si ay ugu dhiirigeliyaan dadka Soomaaliyeed inay u dalxiisaan goobtan isla markaana u dareensiiyaan inay tahay goob ammaan ah haddii ay awal ka fikri jireen wadamo kale oo dunida ku yaala ayaa qurux badan waxaan rabaa inaan aragtiin maanta meeshaan taagan meel nabada bad iyo webi ay isku darayaan barwaaqo buuro dabayl qurux badan caafimaad waxa kaliya oo naga maqan kaliya waxa weeyaan inaan aragno wadankeena sidoo quruxda wadankeena uu leeyahay fursadda barwaaqada aan haysano in wadankeena sidaas aan gaajo ku noolaano ilaahay lagu cadaabay maalin dambe ay naga lumin sida madaxweynuhu uu sheegay waa inaan amniga ka shaqeynaa waa inaan beeraha qodanaa waa inaan kalluunka la soo baxnaa waa inaan wadankeena ku damaashaadnaa meeshan badda iyo bariga isku darayaan meeshan webigii iyo baddi leh meeshan dhulbarihii adduunku ku yaalo meeshan barwaaqadeedu ay sidaas tahay haddii xataa kaliya intaan amniga ka shaqeyno dalxiiska aan u furno intaasaan ku fulan dad badan oo Soomaaliyeed inay ku noolaadaan war Soomaali ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale kulan muhiim ah la qaatay shacabka ku nool deegaanka Goobweyn kuwa oo si weyn u soo dhaweeyay wafdiga uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaana laga dareemayay wajiyadooda farxad ku aadan inay arkaan madaxda dawladda dhexe ugu tagaysa tuuladooda waxaan idin sheegayaa tuulada Goobweyn baahideeda waa waxbarasho waa caafimaad
waa biyo waa koronto intaba malaha intaas waliid bay ku tahay waa hashi tuulo ay leeyihiin ay ogaadeen yaan marka hore yaan horta aan u sheegaynaa waxaan leenahay madaxda sharafta leh soo dhawaada ra'iisul wasaaraha oo ugu horeeyo oo madaxweyne intaas markaan kaga baxo goobweyn waa tuulo qadiimi ah oo burbur ah dhowr sano dagaal iyo waxyaabo ay daashideen haddana waxay diyaar u tahay dowladda Jubbaland غير Allah siiyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe oo ka hadlay dhinaciisa kulanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kula qaatay deegaanka goobweyn dadka shacabka ayaa sheegay in deegaanka ay ka jirto baahi aad u weyn dowladda Soomaaliya looga baahan yahay inay maamulka Jubbaland ku gacan siiso shacabku sida ay ka hadlayaan waliba waxay iyaga ka sii dambeeyay reer goobweyn ka sii nolol adag iyaga ugu roon oo wuxuun xataa dowladii ay ka soo gaaraan iyagoo aad arkayso in koronto la'aan iyo waxbarasho la'aan iyo wax badan ay jiraan Jubbaland ahaan wixii aan qaban karno insha Allah diyaar baan u nahay la qabanno maamulkoodana aan u sheegno wixii ama raashin ama dawo ama loo keeni karana waan u keenaynaa idinkana dowladda federaalka waxaa la idinka baahaya mas'uuliyaddii Soomaalinimadeeda saaran inaad ka soo baxdaan shacabkaas waxay reer goobweyn maanta ku fiican yihiin inay gacan dowladda ku jiraan kuwa gacanta dowladda ay ku jirin baa iyaga ka dhibadan maanta oo ka baahi badan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in baahida ay qabaan dadka ku nool deegaanka goobweyn ay dowladdu wax ka qabanayso ayna ayaan daro tahay in dadka deegaankaani ay haysato culays dhinaca nolosha ah iyo caawinaadaad codsateena waa la idin siinayaa hadii la yiraahdo madaxweynahan kala tashan doonaa way maqlaayaan wasiiradii waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga oo dhibaatada sheegtay in dhibaatadooda wax laga soo qabto sida ugu dhaqsaha badan laakiin goobweyn waxay ahayd in adduunyadu ay u soo dalxiis tagto waxay ahayd inay Soomaaliya oo dhan dharjiso waxay ahayd inay ahaato sharafta iyo muuqaalka ummadda Soomaaliyeed meeshii dunida ugu barwaaqada badneed inay dadkeenu ku dhimanayaan miyaanay taariikhdaas mugdiga noo galin buugagta dhinaca kale ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Kismaayo si caadi ah goobaha ganacsiga ula kulmayay dadka shacabka si uu dareensiiyo in dawladnimadu iyaga tahay ayna madaxda dawladda dhexe ka go'an tahay inay bulshada ku dhex jiraan si ay u ogaadaan baahida ay qabaan Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Kismaayo.